السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتي هذا سيدا ويدشين بكسو دوادا مركليو فيديو عصب iyo suuqii Arsenal fadlan hadii aad channelka subscribe inoo saar si aan u helno akhyaar fara badan oo reer Arsenal fans ah aan ku bilaabay ciyaaryahankii shalay aan warka ka sugeynay Declan Rice ayaa Arsenal lacagtii ay bandhigtay isla markiiba lagu soo celiyay sidan ayaana loogu soo celiyay Arsenal sidan ay sameysay 90 milyan ee meesha ay la tagtay waxay u kala qaybisay labo waxay dhaheen Arsenal waxaan bixinaynaa hadda 75 milyan 75 milyan ayaan bixinaynaa 15 milyan ee kalena gadaal ayaan ka bixinaynaa halka West Ham iyo aniga sidaan predict gareynay qiyaasayna aan u maleynay in Arsenal ay 90 milyan bixin doonto gadaalna ay kaga soo dari doonto runtii ayadoo aan wax wada hadal aanan maartay ay sii furin West Ham ay isla markii Arsenal lacagta ku soo celisay marka Arsenal dhaqan xumadeedii bay meesha la tagtay oo suuqiga hada waxay bilaawday maartay in ay Nicolas Pepe oo ciyaaryahanka aragtay ah sida lagu qasaaray 75 milyan laga bixiyay oo waliba add-ons aysan ku jirin waxay doonayaan inay Declan Rice hadda 75 milyan ay ku soo qaataan iyadoo waliba suuqa intuu iska halaaway ciyaaryahanadii Englishka ahaa ee England u dhashay ay boqol la iskaga sheeganayo Arsenal suuqan daacad waa inay ka noqotaa Arsenal ciyaaryahanka 90 milyan oo qalma waxa weeyaan war Declan Rice hadii ay hesho waxa waayo waa 7 sano hadda ka dambe khadkaas waa safe ku yahay ciyaaryahanka oo ka badbaado dhaawaca marka wali Arsenal kamaysan quusan ciyaaryahanka sidoo kale waxa la rajeynayaa isla maanta hadana inay maartay lacag kale ay celiyaan oo lacag kale ay la noqdaan hadana ay baraawayaan asaatee suuq xumadoodii un Arsenal iskaga jiraan Arsenal waligeed suuq xumada waa lagu yaqaan moogta waa dad aad u gacan adag hadana daahitaan badan marka ciyaaryahankaas waa fiirin asagana maanta Arsenal lacagta ay la noqoto iyo waxa ay maartay ay ka soo heshaba sidoo kale ciyaaryahankii Timber ciyaaryahankii difaaca ahaa iyadana maanta waxa lagu soo waramayaa FA Cup ki maartay Man City iyo ay ciyaarayeen Manchester United ciyaaryahanka Timber ka soo qayb galay oo London ayuu imaaday isla maalinka ayana waxa la sheegay Arsenal inay ciyaaryahanka ay la heshiisay oo inay u sheegtay inay u baahan tahay ayna doonayaan inay clubka ay ku soo biiriyaan marka Manchester United waxa la yiri bilaash ba isku daalinaysaane waxa la yiri ninkaas waa nin Arsenal hore heshiis la galayo waa nin Bayern diidan ninkan waa nin Arsenal ay uga cadahay marka ciyaaryahankaasna waxa la rajeynayaa waxa la leeyahay maanta wax positive talk ayaa socdo marka hadallo wanaagsan ayaa ilaa hadda la isdhaafsanayaa oo Arsenal ciyaaryahanka aad bay u rajeynaysaa in ay maartay ay saxiixda isaguna isna maanta xilliyada dambe ayaan ogaan doonaa halka ay maartay uu ku dambeeyay ciyaaryahanka Arsenal masoo qaban doonta runtii sida ay sheegay Ajax lacagta ay u baahan tahay waa 50 milyan iyadoo walibana hadii la sii wada hadlo ay maartay 45 milyan ciyaaryahanka lagu heli karo isna waan arki doonaa halka uu ku dambeeyo sidoo kale Kai Havertz ay Arsenal rajeynaya in ay Chelsea ka soo jawaabto maadaama wali lacagtii loo bandhigay aysan ka soo jawaabin sidoo kale asna ciyaaryahankii ahaa Romeo Lavia ayaa isna Arsenal aad ugu rajo weyn tahay inkastoo aysan jirin wali lacag Arsenal ay diyaarisay oo Southampton ay u bandhigtay ciyaaryahanka ay ku doonayso hasaatee waxa la Arsenal waxay ka dhaadhicinaysaa ciyaaryahanka inuu markii hore asaga uu maartay isagoo jecel clubka uu soo doorto si hadana lacag maartay ugu raadiyaan ciyaaryahanka lacag ka bixiyaan marka iyaduna waa arki doonaa qaabkay wax isu soo taraan maanta iyo wararka aan heli doonaa dhamaantood kulli waa idin la soo wadaagi doonaa hadana waxa idin kaga tagayaa khiyaartayda sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh